shaqeynayo kuma faraxsano halka goobta uu joogo kuma faraxsano shaqada uu hayo kuma faraxsano hadduu yahay nin ganacsado weyn ah wuxuu jecel yahay inuu ganacsigan bedelo ganacsi kale uu aado kii uu hayay kuma qanacsano qanaca la'aan buu arkayaa cariir buu dareemayaa marka qofka xitaa hadduu shaqaale yahay shaqadan uu hayo kuma qanacsano wuxuu dareemayaa cariir ayuu dareemayaa sida awgeed calaamada noocaas ah waxa iska leh xasadka qof la xastay ayaa calaamadahaasi iska leh qodobka labaad qofka la xastay dhaqaatiirtu markay eegaan xaaladiisa oo ciladiisa ay bixin waayaan waxay yiraahdaan waxa ku haya depression kala saad ogtihiin waxa keeni kara sabab laakiin haddii aad aragtid sabab la'aan haddii lagu sheego depression baad qabtaa yani stress iyo waxyaalo kale kugu jiro haddii ay dhaqaatiirtu ku yiraahdaan markay ciladaada fahmi waayaan kadib ogow inuu xasad ku hayo maxaa yeelay depressionka iyo waxyaalahan waa inay waxyaalo qofka ay ku dhaceen ayay ku imaadaan depressionka walwalkan iyo waxyaalahan farada badan qofka haddii dhibaato ay ku dhacday oo sabab la dhihi karo sababtaas qofkan waxaan u keentay yani dhaqaatiirta iyo warkoodii nidaamkaas waa la raaci karaa laakiin adiga oo wax dhibaato ah qabin gurigaagi joogo reerkaagi dhaqanayo waxbarashadaadii hawlahaagii iska maarta wax walba caadi ay ku yihiin intaad xanuunsato dhakhtar aado lagu yiraahdo xanuun ma qabtid wax walba waa kaa baarnay depression baa ku haya psychologist aad haddii ku yiraahdaan ogow waxa ku haya xasad si dhaqsa waa inaad isaga daaweyso qodobka saddexaad qofka la xastay waxa ku cuslaanayso salaada iyo cibaadada nooc kasta oo cibaadada ay leedahay ayaa ku cuslaanayso dhibaato kala kulmaya ma awoodo cariir buu dareemaya salaada subax ma kacayo cishaha ku cuslaanaya yani waxa weeyaan quraan akhriskii baa ku adkaanaya cibaado dhan ayaa ku adkaanayso qofka la xastay qodobka afraad qofka xasadka qaba waxba ma baran karo asagoo heli kara dhammaan tasjiilaadkii wax lagu baran lahaa haday hoy tahay haday maaragtay iskuul tahay haday madrasad tahay wax kaste oo uu baran karo ayadoo u fududahay ayaa hadana uusan waxba baran karin qofka xasadka qaba qodobka shanaad qofka la xastay wuxuu nacaa la fadhiga ama la sheekaysiga dadka culimada ah dadka wanaagsan inuu la fariisto wuu karaahsadaa korka ayaa gubta cariir buu dareemaa isla markaasi wuxuu jecel yahay inuu gooni u baxo oo keligii isla sheekaysto keligii meel fariisto keligii fikiro ayuu jecel yahay dhammaan shantan calaamadood waxay ka mid yihiin calaamadaha lagu garto qofka xasadka qabo haddaba calaamadaha noocaas oo kale ah haddii aad isku aragto ama aad dareemaysid waa in aad ogaatid in ciladaasi ay jirto dhankana aad isku daaweysid daawooyinka dhirta